dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkan oo aan idinku soo gudbin doonno qaar ka mida raggii gabayaaga ahaa ee waaweynaa sida salaan carabay, cabdi iidaan faarax, raage ugaas, faarax nuur, cabdi gahayr iyo cali xuseen xirsi. waana tabintii iyo soo jeedintii axmed faarax idaaje. dhegaysi wacan waa isku soo dubaridkii iyo habayntii raactiyu. dhegaystayaal, waxaa jira hal abuurka tirinta maansada hibada loo siiyey waxyaalo badan oo uu dadka kala dheer yahay. marka koowaad, awood aan lala wadaagin ayuu u leeyahay nuxurka dhacdooyinka isaga soo mara ama uu goobjoogga u ahaa inuu maankiisa ku weeleeyo. marka labaadna dhaqsuu wax u gartaa oo hal abuurka dhabta ah iyo damiinnimo dhulka iyo xidiguhu intay isu jiraan ayay isu jiraan. tilmaamahaas hal abuurrada dhabta ah aan u sheegay waxaynu garawsan karaynaa marka aan u kuurgallo iyaga oo aan waxbarasho rasmi ah u lahayn sidii ay qaarkood u abbaareen ee ay wax uga yidhaahdeen kasmooyin ad adag oo xataa ragga aqoonta gaarka ah u lihi ay marar badan ku turunturroodaan. kasmooyinkaas waxaa ka mid a diinta islaamka oo ah caqiidada keli ah ee ummaddu aaminsan tahay, kusa qoran afka carabiga oo ah af si walba uga duwan af soomaaliga. iyada oo ay dhibaatadaasi jirto ayaa haddana culimmadii hore ee soomaalidu waxay ku guulaysteen si wacan inay dad badan u aflixiyaan bulshada dhexdeedana diinta ku faafiyaan ilaa ay dhaqan u noqotay hiddaheedana ay ku dhex midantay. sidaas culimmadu ha u baahisay haddana dadka oo idiri aqoonta diinta heer fiican kama wada gaarsiisnayn. sideedana ma jirto bulsho qof waliba uu diintiisa aqoon sare u leeyahay. meel walba dadku waa culimmo iyo caamo. waa in barashada diinta wakhti dheeraada siisa kana yool gaadha iyo in inta lagu cibaadaysto oo qura iskaga kaaftoonta. had iyo jeerna diinta barashadeeda inta u gooda iyo inta kale ayaa badan. dadweyne cilmi dhagoodka iyo wacdiga culimmada ayuu isku fillaysiiyaa. hadduu ugu batana wuxuu wax ka bartaa shuruudaha cibaadooyinka qaarkood iyo mabaadi'da guud ee ruuxa muslimka ah lama huraanka u ah. dadweynahaas wacdiga iyo waanada culimmada dhagaysan jiray ayaa haddaba weligood kala fahmo badnaa, waxaana ugu daraa hal abuurrada kuwaasoo markii ay diinta maansada la aadaan loo malayn karo inay muddo dheer xel cilmi ku raageen. badankooduna sidaas ma ahayne waxaa kaalmeeyey dareenka maansayahanimo iyo fahmada uu kolka horeba eebba ku galladay, dadka kalena ay dheer yihiin. haddaba si aanu dooddaas daliil uga hello waxaanu soo qaadanaynaa gabayaa soomaali inta sixiyihiisa wax ka taqaanay ay u qirsan tahay inuu raca hologeli karo. waa salaan carabay oo lagu malawan yahay 1940 bartamahooda inuu xisaabtay. wuxuu ahaa badmareen maraakiibta ka xoogsada dalka dibaddiisana muddo dheer ku noolaa. taasina waxay u suuro gelisay inuu barto afaf shisheeye oo carabiga iyo hindigu ay ka mid yihiin. badmareen ha ahaadee haddana markaa ka hor iyo kadibba wuxuu salaan ahaa nin miyigana in door ku noolaa, kana qayb qaatay wax alla wixii hiddo ahaa oo raacatadii soomaalidu ay ku dhaqmi jirtay. rag badan ayay isu gabiyeen, waana ninkii tiriyey tixdii mayn la baxday oo lagu tiriyo gabayada diradiraha ah ee soomaalidu taqaan kuwa ugu ba'an uguna tayada sarreeya. gadaalkii markuu gaboobay ayuu go'aansaday inuu eebbe u toobad celiyo. wuxuu dib u milicsaday, dabadeedna aqoonsaday wixii uu dembi soo galay. mar keliya ayaa waxaa hortiisa looga muujiyey dantaarmoogidii uu ku soo raagay iyo wacdaraha aakhiro kaga horreeya ee culimmadu ay isaga oo kale ugu dardaar welisay. wuxuu xusuustaa maalinta la isa soo saari doono ee aadanaha mid waliba warqadda xisaabtiisa uu daalacan doono, maalinta uu muslimku gaalada ku wiilsan doono ee labada waddo la kala qaadsiin doono. wuxuu ka welwelay maalintaa la yaab kale ee uusan hubin dhinaca uu eebba ku beerin doono. ilaah buu markaa u qiranayaa inuusan oofin ballankii horreeyey ee uu la galay. dabadeedna isaga oo aan naxariistiisa ka raja dhigin ayuu guddoonsanayaa bal iyadaa xidhiirka ilaah iyo addoommadiisa u horraysay inuu salaadda tukado. kolkaas buu gabaygan ku yidhi: cabdiyow wadaeciya adduun way ka bixi waaye, walbahaarka waan kula qabaa wahana ii dheere. fircoonkii wasiilada jannada waadiyada jeexday, waarsiina abiduu jeclaa waasa noloshiiyo ka kalaa warayto ugu haray waxaddi xoolaad. wadku kama ajoon nebiyadii inaga weynaaye, nafl aadan kama wiil badnayn, waase kii dilaye waxyi looma soo rogin. jibriil waagii dabadeeda ninkii welima boqortooyo sugi waanu helihayn. ha la wariyey
sheekh iyo wadaad waracyadii diinta culimmadu warkay sheegtay iyo waanadaa dhabahee wacdi nooma laabnee naftaa walafta shaydaanib waja cudur waraaq malag haddaan wiilid ilaa caawa isaguba khalqiga wau wakiil waanu naxahayne weji qadabla weer kulul hadduu xaqa i weydiiyo allahayo walcaankaan qabo iyo waalinimadaada wanakiilka geerida godkaan weydka khoof ahayn waayaha i haysta iyo dembiga weelasha ay buuxshay horay waran waryadu noogu timi waaqladuu yahay ee waxsigii qubuuraha intaad iiga wehel yeesho ebbo walcada haygu gubeen waqad cadaabeedda maantaan wuxuustuna maqnayn waxaad intaad uuntay oo uunku wada waaqif yahay wacadka meecaadka gaalada wabiinkaa haddii loo wadiya naarta muslim inuu ku wiirsado adaa wacay dharaartaase miisaanka inaan waafi noqon waasinka xisaabta aan waladu khayr noqon hadduu weyne iga yeelo iyo inaan walaabida ku dhice weylintiiyo hoogga weycaanta khaatumo waxay noqon waraaqdaydu waafaqad jeeraan hubsada waa walwalayaaye warna ma hayo gees ay arrini ii wacaal bixi dadku laba waduu qaadayaa oo wadaahi ahay aan midina miduu weycan karin oon wadaagsamine wastina ma laha naartiyo jannada wax u dhexeeyaaye mugga inaan naftayda u welgamo aakhiraa wacanee waslad maniyaanahay asaan waafin cahadkiiye waan waanta nololeed intaan sida waxoogaaga wakhtiga maantukada geedada waajib oo xigayaba dhegaystayaal qur-aanka iyo laqbihiisa dadka ay wax uga bilaaban yihiin siday dareemi karaan waxaa tixda salaan ku googo'an duluucda qaar ka mid ah aayadaha qur-aanka ee ka hadla muuqaalada qiyaamaha lala kulmi doono iyo weliba kuwa ka hadla xilliga u dhexeeya geedida iyo isu soo bixinta dambe kolka macid baa inta dhiisata odhan karaysa gabayaagu waa caamo mar walba oo aan dib ugu noqdo amaba aan ka kor dhaco tu ka mid ah tixaha tirada yar ee raaga ogaas warfaa naga soo gaaray waxaan kala kulmaa macaan iyo murti hor leh sidii cad dhadhan leh oo igu tegey ayaan u sii shiiqsadaa tuduc walba waxaa iga soo baxa macno cusub oo awal iga diimoonaa isagase weligiiba ku dugnaa madaxa yamaankaba waxaan u ruxaa falsamida isku sargoynta meerisyada iyo xulasho wanaagga erayada ku habboon kolba ujeeddada uu maantaa ka maansoonayo markaas baan u garaabaa soomaalidii qarnigii 19aad ee hormuudnimadiisa u kala bayri weyday dabadeedna calanka maansada inta u gacan gelisay uga wada hadhay raagogaas wuxuu inooga tegey maanse qurux iyo quruurba isku darsatay tixo ay midiba ujeeddo gaara xambaarsan tahay dhammaantoodse ay fartiisu ku wada taal waxaa ka mid a qaar jacayl ah oo haddaanay iyagu jireen maansadeennii hore ay dareenkaasba ka marraan lahayd waxaa iyagana laga hayaa tixo calaacal ah kuwo baroor diiq ah tu ammaan faras ah iyo weliba kuwo uu ugu halceliyey maansayahano kale oo ay isqoomeen ujeeddooyinkaas oo badidoodii la wada maqlay ka sokow raaga wuxuu tiriyey geeraar uu geela ku tilmaamay kaasoo aan filaayo bulshada soomaalida inuusan si baahsan ugu wada dhex fidin sida uu u tiirsan yahay iyo macnahaba kolkaad u fiirsato waa geeraar meelo dhowr ah kaga duwan maansada ku saabsan ammaanta geela ee ay suugaanta soomaalidu hodanka ka tahay ammaan qayaxantiisu ma ahee wuxuu si kooban u soo bandhigayaa waxdheefka xaddiga weyn leh ee uu meesigaasi u lahaa soomaalidii raacatada ahayd ee xilligiisii iyo tii ka dambaysay labadaba habka uu u soo jeedinayo iyo qayb walba weydiinta ashqaraarka huwan ee uu ku idlaynayo ayaa qasbaya ammaantu inay innaga inaga timaaddo iyada oo gabayaagu aanu afka inoogu tirayn dhinaca kale maansayahanada soomaalidu kolka ay geela ammaanayaan waxay qayb weyn ka siiyaan baarqabka nirgaha dhala iyo xilliga uu qooqan yahay tilmaamaha la yaab kale ee uu la soo baxo hiddahaas isaga ah raaga wuu ka bayray tilmaanta baarqabkana wuxuu ka doorbiday tilmaanta awoodda iyo waxdheefka lagu qabo awrka gurgur gaadiidka aan la'aantiis qoys reermiya ay dhaqmi karin abaarna ka soo doogi karin dhammaadka tixda ayuu inagu xusuusinayaa sida awrka loo raro iyo culayska guradiisa la saaro ee maalinta la geediyo uu dusha u ridan karo dad duunyo iyo saabaanba sidoo kale wuxuu marahayga raaga ku keliyeystay geeraarkanna uu inagu dareensiinayaa qoyska ama ninka geela leh raaxada nafsadeed ee maanshaysa mar walba oo uu milicsado kelimada horweynka iyo hareeradaba leh ee xeryaha uga buuxa iyo sida ay kashu ugu qabowdo waa beriga marka nirgaha ooda la isaga qaado ee uu ololkeedu isu baxo wuxuu yidhi gucgucdeeda arooriyiyo isku gaagixinteeda away gooha wanaajaay gurxankii habilaad cidka ooga dawaamay dayaxoo galka diiday dhulka ooga sariiday dhirta oo gabalkeed iyo garadkiiba har waayey oo xanagaasir noqdeen iyadaa la gumriyoon qarankeeda gabayne aweygeeda hallaaxaay xumbadii gadfanay
hadduu geedku dareero oo barqin loo gambaraasho oo arina boodka ku gaabto guduudkeeda arooriyo indhaha waa geshirkoode away reera gobeeye ay xeryihii gingina gabxaddaala liyaad oo gasaar looga hayaamay kolka waagu guduuto korankeeda la gaato haddaan soo garbaduubo oo ganka loo kabadeeyo ambaarkii gudbanaa iyo gantaalow udubkii xarga loogu gunto in gadaanliya dhiil iyo garadii waxartii iyo gurboodkii yaryaraa iyo gardhaaray dirigtii iyo midka gaadha tolay iyo ka gamuunka daleeyiyo gaalleefay mindidii intaasaan guradiisa gaarba gaar u dhigaa dhigihii godgodnaa iyo lamadii gadfanayd haddii aan gab ku siiyoon xargihiisa u giito asaan heegga ka gooyo galow buu u kacaayo hadduu wiilku gar qaado gurguurtow lama gaaree awa gaatamihii dhegaystayaal geeraarkii waa kaa waxaase ku noqosho mudan tilmaanta gaadiidka meerisadii uu ugu dambaysiiyey ee ahaa dhigihii godgodnaa iyo lamadii gadfanayd haddii aan gab ku siiyoon xargihiisa u giito asaan heegga ka gooyo galow buu u kacaayo hadduu wiilku gar qaado gurguurtow lama gaaree away gaatamihii aad baad u mahadsantahay idaaja dhegaystayaal soomaalidu waxay ku maahmaahdaa erayna la kala odhan og eebbana la kala baryi og mahmaahdaasi waxay mar walba i xusuusisaa allaha u naxariistee gabayaagii caanka ahaa ee la odhan jiray cabdi iidaan faarax cabdi iidaan wuxuu ahaa ragga aan diriqsane maansada tirinteeda hibada dhabta ah u lahaa wuxuu dhashay 1924 1980kiina hargeysa ayuu ku iishay wuxuu ka mid ahaa xilliyadii dambe tiirarkii xoogga lahaa ee maansada soomaalida cuskiinada u ahaa cabdi iidaan xer cilmi weligii ma noqon aqoonta diintana laguma cawri jirin ha yeeshee waxaan u haynaa tixo maansa diineed lagu magacaabi karo oo kuu fasiri kara sababta aan maansayahanada ugala maago inaan caamo ku sheego amaba aan ku tiriyo 1960kii ayaa cabdi la xiray xukun dheer ayaa ka dul yeeray laba guug ku dhowaad kolkii uu qabiraa ayay kulmeen xabsigii uu ku jiray sarkaalkii taliyaha ka ahaa kaasoo ku yidhi cabdow in lagu cafiyaa la arkaaye madaxweynaha dalka arji codsi ah u qoro markaas baa waxa uu eebbe afkiisa ka keenay arji waxaan u qoranayaa ilaaha weyn ee awoodda kama dambaysta ahi ay isaga ku urursan tahay gabay uu arji ku magacaabay oo rabbi bari ah ayuu bilaabay kolkii uu sarkaalkii ka tegey gabay si aan laaxin lagu ogeyn uu ugu faahfaahiyey awoodaha magacyada iyo koosha uu eebba mudan yahay isaga oo la moodo magacyada iyo sifooyinkaa wan wanaagsan inuu waayo badan baranayay guunayada diintana uu ugu xeraystay wuxuu rabbi bari cabdi ku yidhi ilaaha loo baahan yahe baahaninow boqorkayow heedheh ilaaha weligii baaqiga noqdayow boqorkayow heedheh ilaahaan xaq lagu beenininow boqorkayow heedheh ilaaha waaxidnimo loo bartayow boqorkayow heedheh ilaahii dunida baaraxa khalqayow boqorkayow heedheh ilaahii inuu burburin sheegayow boqorkayow heedheh birtii culus allaha kala jabshow boqorkayow heedheh ilaaha ciidankii badan yahayow boqorkayow heedheh bini aadni waa meel sokeeh boqorkayow heedheh bismillaahi waa culustahee boqorkayow heedheh ilaahii dartii lagu baryayow boqorkayow heedheh ilaaha deeqsinimo loo baxshayow boqorkayow heedheh kolka bacadka yoolkiyo la tago balalqiyaamaa nin kastoo badraanihi kolkuu biilna tari waayo ilaaha xugunka keligii bogtow boqorkayow heedheh barjanno iyo cadaabtuu khalqiga ugu bushaareeyey barba meeluu geeyaba korkuu kala boqoolsiiyey ilaahii laba u kala bayriyayow boqorkayow heedheh bidhaantii jirtaba kii arkow boqorkayow heedheh bad wax mara biriga wax jiriyo buura dabadooda in bog leh iyo in baabaca dhigtiyo baalka lagu duuro bushinno nool allaha quudiyow boqorkayow heedheh biyo oday intuu iga khalqay iyo biliq yaroo dhiiga bilcan dumara uurkeed intuu igu barwaaqeeyey barna aniga oon qabin isagaan igu bokaysiinin ilaahay nolosha igu soo baxshow boqorkayow heedheh baabaca addoon baan dhigtaye boqorkayow heedheh boqolkaaga magacee midla baan baaqa maqashiina ilaahow xadhigga sahal iiga bixi ku baryootamaya buu yidhi maalintaa
isbeddel xoog leh ayaa dalkii ka dhacay. xukuumaddii cabdi u xiraa ee rayadka ahaa ayaa la afgembiyey. waxaa la soo gaaray 22 Oktoobar 1969. maalintaa ayaa waxaa taladii la wareegay saraakiil xoogga dalka Soomaaliyeed ka tirsanayd, kuwaasoo markii ay guulaysteen ooda ka qaaday maxaabiis fara badan oo ayaankiisa uu cabdi iidan ku jiray. ha yeeshee 2 guu kadib ayaa boolisku cabdi iyo rag kale haddana soo qabqabtay. ammaanka qaranka dembi ciqaabeed ku lug leh ayaa lagu soo eedeeyey. dabadeedna maxkamad baa waxay ku xukuntay xarig aan ka yarayn kii uu dhowaanta cafiska kaga soo baxay, waxaana la geeyey isla xabsigii uu ku jiri jiray. muddo hadduu halkaa ku sugnaa ayuu rag tara kama dhammaatee maalin maalmaha ka mid a wuxuu ku tashaday inuu baxsado oo meesha iyo kareedka yaalba naftiisa ka samata bixiyo. goor aan indhuhu badnayn ayuu derbi dheer iska jaray. dhulka ayuu isbilqay. dabadeedna intuu kaca isiiday ayuu hinqaday. mase lug baaba baf ah oo wuu jaban yahay. taah iyo alalad baaxiyey. wax yar kadibna askartii baa isaga oo kuududa halkiisii ku soo dul joogsatay. isbitaal baa loola cararay. inta la soo kabay baa kobtiisii lagu soo celiyey. maalintaas bay saraakiishii xabsigu waxay guddoomiyeen cabdi in halis loo aqoonsado, inkastoo oo jabnaana silsilad adag sariirtiisa lagula xidho. isaga oo xaaladda adag ku sugan ayaa maalintii dambe waxaa qolkii uu ku jiray ugu soo galay taliyihii teelka oo ku yidhi, cabdow waynu is ogeyn oo waataad berigii hore ilaah bariday ee uu xabsiga kaa saaraye, maantana maxaad odhan? hadalkaas sarkaalka isaga oo la yaaban ayuu isla goobtii ku tiriyey tixdan gaaban asii macnaha weyn leh. wuxuu yidhi, wariyaa sarkaalow waxaan odhan mar wax bixiye bini aadmi baa lagu maleeyaaye adigaan khasnadahaagu maran mahade buuxaaye adiguu ku soo magan galaa ruux madluunihiyo kol haddii miciinow la yidhi meel kalaan jirin. maqribkay cadceeddu u dhacdo iyo muuqashada waaga madowga iyo iftiinka isbeddela maalinya habeenka munasirul qur-aankow fadliga maxamed kaahiisa iyo magaca weynee cabsiga yaan makaansadaa ee haddana sacabadaydii madhnaa meeshii soo dhigaye maantana allahayowna furo kuu mataannahay. alaabtaasna baryadiisii kuma hungoobin, malihiisiina kuma khasaarin. magaca weyn ee eebbe ee haddii lagu baryo aan lagu qadin ayuu cuskaday. saa ilaah baa furtay oo xabsigii halhaleel uga saaray. haddaba mayaab bay leedahay haddii aan la yaabno sida qaarkood culimo iyo caamo intay dadka ugu qaybiyaan ay indha adeygooda maansayahanada caamada ugu daraan. dhegaystayaal, barnaamijkeennii fanka iyo suugaantu maanta halkaa aynoo joog. dhegaystayaal, buraanburku waa bad ka mid ah badaha maansada soomaalida lagu tiriyo, wuxuuna gaar u yahay haweenka hal abuurnimada hibada loo siiyey. mar waa hees cayaareed sacab, jaan iyo ku goosiba leh oo gabdhaha da'yarta ahi ay ku madadaashaan. mar kalena waa maanse hablaweyntu ay isugu halceliyaan oo ay ku kaftamaan, haddii ay ka xumaatana ay ku caytamaan. waayadii hore aalaaba waxaa buraanburka loo qaban jiray aroosyada. midhihii lagu tirin jirayna waxay u badnaayeen ammaanta inanka iyo inanta madasha guurkooda la isugu yimid iyo weliba reeraha ay u kala dhasheen. waxay kaloo dumarkii hore buraanburro ka tirin jireen xisaalada ragga qaar, gaar ahaan dabeecadaha qorqodaha iyo godolaha. buraanburku isaga oo u gaara ayay dumarku qaybaha kale ee maansadana ka qayb qaataan. qarnigii 19aad iyo kii 20aadba waxaa caan baxay haween Soomaaliyeed oo gabay iyo geeraarba raggii la gabyaday kaga dheereeyey. magacyada weli la xusuusan yahay ama dhaxalkoodii maanso ay wax naga soo gaareen waxaa ka mid ah guntato dhaga karco, suuban harabla xaryan iyo jamaal sheekh cabdille oo ay sayid maxamed walaala ahaayeen. ragga qudhiisu inkastoo madal la isugu yimid uusan la soo joogsan, haddana tirinta buraanburka kama caagana. gabayaal la odhan jiray axmed busur ayaa iska lahaa gobollada dhexe ee Soomaaliya wixii buraanbur laga tiriyey tixda marahayga ugu caansan. waxay ahayd tix uu tiriyey haweenay u dhexday mar ay xafiiska qaaliga ka dacwaysay, dabadeedna uu isagu gartii ka helay. markii xafiiskii laga soo dareeray ayaa waxaa ku soo dhacday axmed busur hafadiisa inuu ku digto. kolkaas buu uma gabyine wuxuu tiriyey tixdan buraanburka ee shaaca noqotay. wuxuu yidhi, maxaa kaa raacay meeshii la xoonsanaa, xafiistegiddii muxuu kaa xayiray wanaag, xurmo allaalehe muxuu xaasid kugu markaba. hadduu waayo aroosyada uun ku ekaa, buraanburku sidii hore kuma soo dhowaan. waxaa ku soo korray ujeeddooyin waaweyn oo la mid ah kuwa ay raggu gabayada kaga hadlaan.
maansada halgankii gobonnimada ee bartamaha qarnigii 20aad dalweynaha soomaalida ka soo shaac baxday ayay dumarkuna buraanburka kaga qayb qaateen madax bannaanidii kadibna waxay kaga hadleen siyaasadihii dalka ka jiray iyo dhammaan nolosha bulshada wax walba oo saamayn ku lahaa dumarkii buraanburka sidaa kor ugu soo qaaday una casriyeeyey way badnaayeen kuwooda ugu magaca dheerna waxaa ka mid ah laba haatanba nool oo la kala yidhaahdo xaliimo soofe iyo xaawo jibriil haddaba si aan buraanburka casrigaa u tusaalayno waxaa habboon bartamihii 80nadii qarnigii 20aad buraanbur ay xaawo jibriil filisay inaan soo qaadanno xaawo oo gabayga iyo buraanburku ay isugu mid yihiin waxay tixdeedan marisay mar ay nafteeda si kaba dambays ah uga xidhiir furaysay caado ay muddaba ka fuqi weyday caado lagu xanto bahda fanka iyo suugaantu inay ku falan tahay oo ah caadada cunista qaadka si qurux badan ayay inoogu tilmaamaysaa waayo aragnimada xanuunka leh ee qaadka iyo qayilaadda ay kala kulantay iyada oo weliba waayeelnimana ay ku soo korodhay sawir dhab ah ayay inaga siinaysaa qaar ka mid a heerarka qofka qayilaa uu maalin walba maro iyo dibindaabyada ay naftiisu ku qabto barqadii waa xaraarad iyo qalqaalin duhurkii ilaa cawaysin dambe waa fadhi iyo qayilaad waa marqaan iyo qorshayaal qurux badan oo halka la fadhiyo aan dhaafsiisnayn waa ballamo dadka iyo naftaba lala galo si aan mudac ka daabnayn gelin dambe waa hurdala'aan iyo isla sheekaysi waa beriga waa hamaansi iyo howlnacayb haddiiba gogasha laga toosana waa wahsi iyo cashi u baahan kolkii horeba cudurkii keenay in lagula tacaalo ma habeenka la waayaa waa dubaab iyo qarow iyo muuqaallo silloon oo marar badan in la sheego aan dadka lagula dhicin waxay xaawa tidhi dookhu waa beleye damac jaad miyaa i galay kala dubaab badane miirow miyaan dalbaday ma jid markaan digatay ma sagaal kalaan ku daray gowskii ma i daaray carabkiina ma i danqaday ma isku daba daaray sakareedka dabacasaah shaahi ma andayne biyihii miyaan daldalay sidaan diin ahay ma dhigay kaadidii qalyaah hadal ma deeqsiiyey delintii intii fadhiday daakiraaddii sariirtii miyaan dul tegey nalkii maan demiyey oo daaqaddii ma xidhay kulayl ma i daaray oo dhidid mayga dililiq yidhi mar isduuduubay marna daahi ma iska rogay anoon dad ila joogin keligay miyaan dacwiyey tinnay duubsadayee hawshii miyaan dayacay anoo daandaana duhurkii miyaan ka kacay ma waxaan door biday naftaydii inaan ku dilo isugu daro da' iyo daal aan dantay ahayn oo daawo uga dhigo caleentaa daroogada ah mahmahdii ahayd ceel nin galay baa laga waraystaa inay run tahay hadda mashakilaa kaaga jira silama aha waa suugaanta qiraalka waxaa lagu magacaabo ee maansayahan ama qoraakii uu doona ha ahaadee uu qof suugaaneedku dadka kula wadaago waayo aragnimo uu soo maray oo xanuun ama macaan u lahayd isaga oo ka run sheegaya waxna aan qarsanayn dhegaystayaal barnaamijkeennii fanka iyo suugaantu maanta halkaa aynoo joogo aad baad u mahadsantahay axmed faarax cali idaaja ayaan inala socodsiinayay waxaana ugu saabsanaa buraanburka ah ay dumarku dabcan tiriyaan laakiin markay buraanburka noqoto kolleyba anigu qof buraanburta muumina buuxo qofka buraanbur ereyadeedu ka culus yihiin oo ka halqabad wanaagsan maan arag inkasta ay yihiin qaadka iyadu ka buraanburin waxay ka buraanburi jirtay guurka arrimaha la xidhiidha ama mariinka ahaato ama xaafad kale ha ahaatee ayay inta badan iyadu ka buraanburi jirtay kolka uu intuu wax u qabto ay ka doodsido ee markuu habsado ay dandarhooyinka waayaha iyo isaga ay isaga dhex baxdo 1903 ilaa dabayaaqada kontonnadii waxaa dalweynaha soomaalida ka aroosnaa halgankii kululaa ee xisbigii SYL uu hogaaminayey halgankaa gobonnimada lagu doonayey looma wada sinnayn dadku leegaha u badnaadee isku si halganka uma wada gelin rag baa halase u jiiray oo in badan xabsi ugu jiray rag baa horseed u ahaa oo diyaar u ahaa dhiiggoodu inuu xornimada u daato rag baa horseed ahaa oo diyaar u ahaa dhiiggoodu inuu xornimada u daato kagana dhabeeyey dumar baa ragga garab taagnaa oo halganka si siman ula waday ama kolkolka qaarkoodba bala dheereeyey intoodii uu gumaysigu ku dhugtamay ka sokow waxaa iyana jiray qaar jeelka ku umulay iyo si ay qadiyadda gobonnimada ugu baritaaraan dahab iyo lacagba qaar murriyadoodii suuqa dhigay
hawkarkii ay dadkaasi u bareereen baa calanka lagu helay ee hadiyad kuma uu imaan sida uu timacadda gabayadiisa midkood ku sheegay su-aashiisa waxay tahay gobonnimadii kadib dadkaas intii dhimatay iyo intii halganka ka noolaatay ma la xaaleeyey oo midhaha xornimadii ay dhaliyeen ma la dareensiiyey jawaabtu waa maya aniguna iskama lihiye waxay ka timi goobjooggii israel mikrofoonka iyo astaantaba u ahaa allaha u naxariistee waa cali xuseen xirsi gabayaagii xornimada iyo midnimada soomaalida gabayaagii xisbiga oo uu ahaa kasokow wuxuu kaloo ka mid ahaa horseedkii howlaha adag ee halista ah loo diri jiray kii aan waana nasan ee dad badani daraaddii ay leegadaba ugu soo xarman jireen cali wuxuu arkay gobonnimadii kadib iyada oo raggii shalay gumaysiga la safnaa ay baraareen kuwii halganka ku soo murxayna ay dhanqalmeen wuxuu arkay kuwii xaawataaka wax laga saarayey oo kuraastii xafiisyada saaxiibadoodii tegey kala wareegay iyo horseedkii oo awaaraha buska leh saami looga dhigay wuxuu arkay xubnaha leegada raggii xabsiyada ku dandarayn jiray oo midhihii gobonnimada dhuundheer ku dhuuqaaya iyo dumaradii dadaalkooda calanka lagu keenay oo margiye xarga u egi ay ka soo hareen wuxuu arkay qabyaaladii oo baal dheer gashatay waxna la isugu qaybinayo iyo ummaddii shalay isku duubnayd oo iniba ay dhinac u baxday habeenkii dambe ayuu inta waxa u muuqday u adkaysan waayey naadigii xisbiga gabay iskala taagay gabay qaybihiisii hore uu ku dulmaraayo taariikhda halgankii la soo galay gaar ahaan goobihii dhagaxtuuriya ha noolaato ee xubnihii leegada iyo talyaani xamar ku dhex maray sannadihii 48 iyo 49 si xanuun badan wuxuu ugu muujinayaa sida loo xooray halgamayaashii gobonnimada soo hooyey iyo sida axdigii leega looga baxay mabaadi'dii soomaali isu keentayna looga bayray xilsi siiqe oo ay horseedka wada ahaayeen intuu ku halqabsaday ayuu tiriyey gabaygan ay quusta iyo walbahaarku ku saansaaban yihiin aanna filaayo inuu 1962 ku beegan yahay wuxuu yidhi xilsiyow xornimadii la helay lagu xantiiroowiye xayskii oonkoday wuxuuna taray xayawaannimo xanaf baaba noo korodhay iyo xaafad kala sooc xaajada qalloocani intay xamar ka qiiqayso ay beentu xoog leedahay xaasidnima joogto aday xigee iqaad iyo intay xor ugu laabayso ninba xeer qabiilnimo intuu xarig maleegaayo xaq ninkii lahaan jiray intii laga xasaynayo xarbigii dadaan gelin intay kor waxambaarayso xaq waa lumaye jeeruu ilaa xaaladda hagaajo xayraanku caliyow aduu kuu xanuun yahay xoolaha sidoodii dadka oo loo xirxiranayo xayraan adkaaday iyo markii xerada loo ootay xaabada wuxuu nagu gurto oo nagu xagaaftaaba xamaaliga gumaysigu markuu nala xaraaraaday xarakadu kolkay muuqatay ee la isu soo xoomay dagaalkii xumaa maalintii la isku xoorxooray xambaboorka hore gaara waa xiise weyn tahaye kolse hadday xinin gaadho waxaa weli dumari xurfadu waxaan ka saaraba markuu calanku xuufleeyey xabaalaha kuwii lagu riday iyo xayga soconaya qoonkii sidaa ugu xarmaday looma xeef dhigan nimankii naftooda u xanimay laga xawaalay xurquun eebbahay baa haya iyo maal la xaabsado ee dadka kale aan kaga soo xullo oo ha u xidheen sharafa bilada loo xantoobshow ekaa lagu xusuustay xisbigii kifaaxow dadkiinii xoorina ee xaasii la arag shalay waxaad u xusul duubteen idinkaa xornimadii dhashay oo suray xidiiglihii ha yeeshay dadkii lama xormayn soo xaqiiltamayd talyaaniga ximaarkaa kuwii inagu xeelaayey xaasida madow wiilashii lagu xariiqaayey ee toogashada loo xukumay baa xafiisyalahee xalwadii waxaa cunay kuwii xaawo gowracay ee raggii kalena way xaaratay ee xaqa ku taagnayd xamaasada dadkii kala gashay iyo xiixda dami weyday xayn waliba dirisyoon waxay uga xifaalootay xigaalnimo la duugay iyo waxaa xididkii nooleeyey xumaantaa waxayna wuti rabay waa xaqiiridii iyo inaxamayey oo boobalii inaga xayraan iyo xabiibnimada waagii hore iyo xarafkii aad sheegtay leegooy xisaab dib ugu noqo laysxasanadeeye haddii kale xagaayay ahayd waxaad ku xiiqdeen cali xuseen allah u naxariistee maanta waxaa u caddaatay kooxihii halgankii SYL sida nafhurka ah uga soo qayb qaatay inaan abaalkoodii loo gudin in loo gudana aan lagu tashoonayn waa marka aanu leenahay ummaddu wadar ahaan ayay kolkol u bi'isaa abaalka ay inimadeedu gashadaan taas oo haddii ay dhacdo laga yaabo dadka inta dan guud kabaha u ilataay inay yaraato dhegaystayaal barnaamijkii fanka iyo suugaantu maanta halkaa haynoo joog hiddaha soomaalida markaad dib u midhacsato ee aad suugaanteeda dhex muquurto waxaad ogaanaysaa baryadu inay ka mid tahay dhaqamada aan la jeclayn baryootanka badan qofka lagu bartaa haddii uu soo muuqdo waa laga naxaa la kulankiisa waa laga warwareegaa
waayaha dambena wuxuu ku dambeeyaa waayeelka dhexdiisa ruux aan laga tixgelin haddii aan laga yasinba weliba waxay ugu daran tahay ruuxa baryotanka ku caanbaxaa kolka uu gabayaal noqdo had iyo jeer halabuurkii hore ee soomaaliyeed wuxuu ku dadaali jiray dhaqan ceebeed oo idil inuu ka fogaado dhaqan ceebeedkaa oo baryada iyo hungurixumadu ay ugu sii liiteen maalinta lagu ogaado inuu fagaaro ka baryootamay ayuu indhaha dadka ka dhici jiray gabayaaga sidaa ku tilmaanaada xataa haddii madhab ka macaan yihiin wax kasta uu tiriyo dhab looma dhagaysan jirin si fududna waxaa ugu haadsan jiray maansayahanada kale ee laga yaabo colaad maanso intay dhex marto inay isugu gabyaan gabayaal la odhan jiray xasan shiil oo reer hobyool ahaa ayay taa oo kale intay ku dhacday kol dambe lagu haadsaday wuxuu ka mid ahaa sadanadii hobyood ee reer kenadiid maansayahanadii daacadda u ahaa wuxuuna ku caanbaxay geeraar habaar ah oo uu sayd maxamed ku kuhaamay taasoo dartii naanaysta gabay aweyntii uu gadaalkii kula baxay sida laga warhayo daraawiish kolkii uu gumaysigu cagta mariyey ayaa qaybtii dambe ee 1920 waxaa iyaguna sidii tusbax go'ay u daatay maamuladii magac ahaanta madaxa bannaanaa ee qoysaska soomaalidu ay ka kala talin jireen xeeb iyo oogaba dalkii oo idili gumaysi caddaan iyo madowba leh ayuu u gacan galay dabadeed bartamihii 1940 goor lagu wado ayaa ismaaciil mira oo ka mid ahaa muqadimiintii daraawiisheed kuwii ugu magaca dheeraa wuxuu maqlay saraakiil ingiriis ahi goob ay joogeen in gabay aweyntii loogu yeeray gabayo inuu ku maaweeliyo in la weydiistay markuu dhammeeyeyna hoo aan sii ridnayn in halkii lagu guddoonsiiyey ismaaciil oo madaxayga xasan shiil ugu ceelqabay sayidka iyo daraawiish tixihii uu ku maagi jiray ayay la noqotay inay habboon tahay dhacdadan inuu gabayaaga ugu halqabto markaas buu gebiyey wuxuu tiriyey tix ujeedooyin badan uu u xambaariyey dhextaalna uu uga dhigay inaan garanayaan sheegay taasoo uu ku daray tuduc uu xasan shiil ugu talagalay aadna uu ugu weeraray wuxuu ahaa inaad gabay aweyntow lafaha gebi ka xoorayso oo aad galbeed tegi adaan guuryo badan haysan aad googoyar iyo u xilan rudol la soo gooyey aad gacaliyo u cuni cadaal lagugu gaadaayo aad dhalashadaadii ku gadangelin waxaad quudan oo lagu geyaysiin wixii halacba loo geystay aad ceeb la godoblayn inaan garanayaan sheeg bulshadii raacatada ahayd ee soomaalida sidii ay baryadu ula foolxumayd iyo gabayaaga baryootama sidii uu uga magac beeli jiray waxaa inoo sii iftiimin karta bartamaha qarnigii 19 sheekadan lagu wado inay ku beegan tahay ee wariyayaashu ay inagu soo simeen waxay dhex martay laba nin oo ilmaadeer ahaa degaankii ay ku noolaayeen iyo ka fogbana uu magacoodu dhab ugu faafay labada midi waa gabayaagii caanka ahaa faarax xasan cali oo faarax afcad lagu naanaysi jiray maansayahanadii qarnigii 19 raggii ugu mirahaya magaca weyne ayuu ka mid ahaa gaar ahaanna waxaa loogu xusuustaa ujeeddada nafti hafarka loo yaqaan ee isagu uu maansada soomaalida ku soo kordhiyey wuxuu kaloo ahaa ammaanduure colwad badan oo kolba halkii geelal badan loogu sheego fardaha ku kiciya eebese wax kama dheefsin jirin oo siduu isba ka calaacalay geel iyo xoolo kale toonihii xedhiyihiisa kuma tarmi jirin ninka kale waa gaashaan cabdilla cali isna wuxuu ahaa hogaamiye la wada muuneeyo degaankooda raggii laga abbaari jirayna ugu horreeyey labada mid waliba wuxuu lahaa qoys iyo carruur wiilal iyo gabdhaba leh oo qaarkood ay barbaaro iyo inama ahaayeen mar hore ayaa laba hablood oo gabayaagu dhalay gu'ya dayr isxigeen isla degaanka lagu guursaday looma soo golo fadhiisan lagamana soo doonin lamana weydiisane labadaba inta lala baxay ayaa wadaadda lala raadsaday oo inta laga mehersaday lala aqalgala tuul markay lahaayeen markay tidcadeenba waa gabdhihiisii intii ay baarka filanayeen oo hantida badan ka filanayay hayeeshe wuu ku hungoobay labadoodii midna yaro lagama siin reerihii guursadayna kuma ay xidhiidin waxay ahayd arrin uu aad uga gam'i waayey arrin ay gocasadeedu sina u dayn weyey afcad oo taasi ay ku taagan tahay ayaa goob subaxa waxaa gola fardoodka ugu yimid nin ay qaraabo ahaayeen kiibaa ku yidhi faaraxow ma xusuusataa ganacsatadii awruhu u raraayeen ee gu saddexaad inta inoo yimid markay inaga ambabaxayeen gaashaan cabdilla gabadha weydiisan jiray faarax oo duruucda su-aashu ay ka daahan tahay ayaa yidhi haahoo aad baan u xusuustaaye maxaad ku keentay shalay galab ayay nimankii soo noqdeen reer gaashaan ayay ku dul furteen waxayna gabadhii ka keeneen fardo baxdow miirana oo yarad ah iyo weliba bundado dhar ah oo ay xeebaha ka soo rogeen shan ratina ay ku soo rareen ninkii baa sidaa ugu warramay markaas baa faarax la galay uu murugooday wuxuu garan waayey waaba ilma adeera isaga iyo gaashaan waxa kale ayaan badnaysiiyey haddana intuu isqabtay ayuu hoos ka istaaqfirollaystay wuxuuse ku tarsaday halhaleen inuu gaashaan ugu tago si uu uga soo helo
xoolaha moodka iyo noolkaba isugu jira ee yaradka loogu keenay qaar ka mida intuu usii socday ayuu tiriyey tixay wax yaray naga soo gaareen oo ina adeerkii gaashaan uu marku xusuusinayo sida uu isagu hablihiisii labada ahaa ugu mala khasaaray mar kalena uu ugu soo jeedinayo dharka loo keenay inuu qayb ka siiyo haddii kale uu fardaha ku qabsan doono ama uu ka dhici doono iyo in iyaga hadhow loogu garnaqi doono xaajana ay sidaa ku dambayn doonto wuxuu yidhi ninkii ina adeer doora lahaa digirsan weligiise dugaag bayga cunay gabadha tii iila daahayda tii iiga dambaysana shalaa jiirladda u galaye dharka iiga door yaan farduhu daawo noo noqon gaashaan cabdille dhulkaa la wareegay dubka iyo dubaaqaba naxdin baa ku baahday walwalkiisuse kama dhalan dharka oo laga yaabo inuu qayb ka bixiyo ama fardaha oo ay suuragal tahay afcad inuu qaar ka booliyo wixii gelgeliyey gabayga uu maqlay unbuu ahaa dhabbuu wuxuu uga naxay tixda soo gaadhay haddiiba waxa ka dhacdhacday haddii ay bulshadu la maqasho magaciis dambe inaan la qaadqaadi doonin wuxuu istusay inkastoo baryootan toosa aan lagu sheegi karin haddana tixdu sidaas kama ay foga marba haddii wax isii iyo gacmo warashu ay ka dhadhamayaan waa in adeerkii uu ku dhaato oo waa gabayaa bari iyo galbeed ay soomaalidu maansadiisa u tabiso sidaa darteed gaashaan wuxuu goostay gabayaaga inuu waxna siiyo waxna u sheego ama uu axri ka xidho wuxuu ku yidhi dharka iyo fardahaba faaraxo waxbaan kaa siin ka horse waa inaad dhaar iigu martaa maanta dabadeed inaadan tirin doonin gabay baryootana iyo tixo aad wax ku doonayso hadalkaa gaashaan faarax wuu garaystay wuxuu ku jawaabay hawlaadsan iyo guddoon waxayna u eg tahay inuu kaga dhabeeyey maxaa yeelay wuxuu dhintay iyada oo gabayadiisa ay soomaalidu aad u tamadiso laguna wada jalbeerto dhegaystayaal barnaamijkeennii fanka iyo suugaantu maanta halkaa aynoo joogo dhegaystayaal barnaamijkeennii hore sidaan ku soo sheegnay soomaalidu hiddo ahaan baryada ma jecla ruuxii lagu bartana waa lagu nacaa iyada oo aan cidna loogu dulqaadan ayay haddana maansayahanada ugu sii daran tahay uguna waxyeello badan tahay af iyo murtiba meel ha dhigtee baryootanku wuxuu hal abuurka geyeysiiyaa in tixihiisa laga sii jeesto oo aan maan iyo maskax furantoona lagu dhegaysan qofka ugu roon ayaa wuxuu ku hiifaa inkaan qabuhu waa gabyii og yahay baryootan baa tixihiisa ku jira haddaba marba haddii ay baryadu darowdo hal abuurkuna uu sidaa ugu maamuus jabo waxaa iska cad ujeedda ahaan maansada caynkaasi inay suugaanta soomaalida aada ugu yar tahay dhabtii inta laga yaqaanay dhowr kama badna marahaygana sababaha ee dhowrkaas qudhowdu inay ugu dhex saafi waayeen midda ugu weynay waa wareeyayaasha oo isku dheli jiray kana hawoon jiray maanse lagu baryootanaayo intay qaybaan inay faaca dambe u soo tabiyaan runtiina bulshadii hore qofkeedna ma jeclayn inuu dadka u sheego tixa baryootana oo aabbihii ama awoogii uu tiriyey haddiiba uu wareeyaal kale ka maqlana kumuu farxi jirin iyadoo waxay sidaas ahaayeen ayaa haddana waayaame waxaana soo gaadhay tix gabay ah oo baryootankii ugu daraa xambaarsan ishaalmaansiinta wareeyaasha waa ka nabadgashay bulshadii lagu dhex tiriyeyna waa tix aanay sida kuwa lajaadka ah isaga dhaga tegin maansiyaankii tiriyey qudhiisu waa tix aanu quursi ku mudan oo aan lagu hiisin laguna haaraamin maxaase talow ugu wacan dib baynu taa ka ogaane war horta sheekada ay ku timid aan idin mariyo waxay dhacday xilliyadii ay soomaalidu ahayd raacatada dhabta ah ee aanay magaalooyinka yeelan noloshoodu xilliyadii ay ku dhisnayd xoolihii ay dhaqan jireen oo iyagana uu jiritaankooda ku xiraa baad iyo biyo dhulka la joogaa kolba wixii uu u hidin karo waayaha degaankooda ayaa baray 4 nuur oo sida badan labana uu roobku do'o labana ay dadaaca yihiin ama jiilaallo buga iyo dayrta balliyada ayaa u buuxsama markaas bay dad iyo duunyada waxay ku naaloodaan meeshii godanba xareedda waran goortay gursadaan oo xagaa ama jiilaal la hirdiyana laasaha iyo ceelasha jabiska ah ayay xoolahana u aroorsadaan doonka iyo maatada xeryihii ku harayna uga soo dhaansadaan guud ahaan deegaanka xoolraacatadu waa oomane cimiladiisu ay kulushahay sidaa darteedna kor walba baahida biyuhu waa joogto jiilaal mugay tahay ayayna ugu daran tahay markaas oo kale waxaa kala fogaada halka ay ceeshu ku taal iyo barrimada ay xooluhu ku barbixi karaan ee daaqa wanaagsan ee ku hara awgii loo eexaysto waa xilli dhib badan si xalladana waxaa uga soo joogi kara uun kolba ciidan ku filan iyo gaadiid xoog la qoyskii haysta haddaba sheekadan gabayga baryootanka ahi uu waariyey waxay ka dhacday degaamada hababkaa looga noolaa midkood waxayna dhex martay 2 qoys oo labaduba xoolo raacatada soomaalida ku abtirsanayay isla markaasna intii muddo ahba xidid ahaa mid ahaan 2 qoys barbaar u dhashay ayaa qoyska kale gabar ka doonay
dabadeedna waa la siiyey waana loo dhisay kadib markuu bixiyey xoolo iyo xafago kaleba wixii yarad ahaa ee lagu heshiiyey waayadii dambe markii la isa sii bartayna wuxuu noqday nin la mahadiyey oo u xilqaba gabadha aabbaheed hooyadeed iyo dhammaan xigta iyo xigaalo wixii ay iyaga hilba ahaayeen weliba wuxuu si gaara ugu roonaa nin seedigiis ah oo saboolnimo iyo xaas weyn la isugu daray seedigiisa oo gabayaa ah ayaa u tegi jiray xilliyada kulkulul ee nacsiga xooluhu ay ka xumaadaan dhaaxuu kala soo noqday geel maal ah ama ari siisma ah oo tuyaallada ku dhaafay wax sidaas la ahaadaba gabadha ninkii qabay ayaa waa damba tii alla u timid nin wanaagsan buu ahaaye waa loo wada baroortay oo la wada tebay waxaase ugu daraa afadii da'da yareed ee uu ka geeriyooday labadii wiil ee ay u dhashay iyo gabayaagii u seediga ahaa ee tabantaabada gaarka ah ku qabay dabadeedna kolkuu dhowr bilood mootanaa ayaa mid kale oo ay walaala ahaayeen qoyskii soo dhex fadhiistay iyada oo ay dantiisu tahay gabadhii shalayta dumaashida u ahayd inuu dumaalo sidaasna uu ku buuxiyo halkii uu walaalkii banneeyey waa siduu xeerku ahaayee looma diidin waa la siiyey waana loo meheriyey isaga oo aan yaro la weydiisan isaguna aanu ku yaboonin lase ogaayo dadku iyaga oo walaalaa ayay haddana waayada dambe kala ansib duwanaadaan iyaga oo ur hooyo ka soo wada dhaxay ayay kala dabeecad noqdaan ninkii gabadha ka geeriyooday haddii wanaag lagu bartay lana wada jeclaa walaalkiisii dumaalay sina ula mid ma ahayn wuxuu noqday nin aan dan iyo heello ka yeelan sodoh iyo seeditoona dadka kalena aanay uga socnayn in yar mooye iyada oo aan bulsho weyntu sidaa u wada ogaan ayaa xoolo raacatadii degaanka waxaa soo food saartay abaar kulul oo dad iyo duunyada loo baqay xilliga sidaas iyadoo lagu jiro ayaa gabayaagii seedigana ahaa dhibaato weyn la soo gudboonaa waxaa ka baktiyey gaadiidkii uu carruurta u dhaansan jiray markaas bay biyo ceel u beeleen saaqoyskiisii iyo haraad baa mataanoobay tol iyo qaraabo wixii ay degaan wadaagta ahaayeen ayuu wada holliyey waxa gacanaa markay u fidin waayeenna waxaa ku soo dhacay reerkii ay wadaashii carruurta u lahayd iyo dhowaanta ninkii dumaalay ay xidideen reerkaas oo in wax uga go'i karaan uu ku malaynayey ayuu u sadcaalay dantiisu waxay ahayd awr uu dhaansado inuu ka soo eriyoodo qaalin uu abaarta kaga soo doogo doonka iyo maatadana uu ku badbaadsado ha yeeshee habeenkii u hoydayba waa loo dayriyey haddiiba wuxuu ogaaday reerku kii uu yaqiinay inaanu ahayn waxaa u caddaatay ninka gabadha dumaalay kii ka dhintay inuu si walba uga duwan yahay si walba wax u tusaalay si walbana ugu cabay waxbase kaga heli waa mar buuba u maleeyey inuu soo habaabay oo qofkan uu la hadlayaa aanu ahayn kii uu awlka u soo doontay ee ay walaashiye u dhexday candhuuf buu dib u liqay abaha ka dhigay wax xididin ah markuu ku adki waayey kolkaasuu malaha is yidhi tiraabkii waa kan oo ku tixintixi waaye bal xagga maansada ula bayda oo gabay wax ugu sheeg suu wuxuu tiriyey gabay baryootana oo uu ku garnaqsanaayo ninkana ufaahinayo sababaha ay tahay inuu awlka ku siiyo hor iyo horaanba wuxuu u sheegayaa oo masooraha uu reerkii kaga yimid iyo oonka ba'an ee ku haystay wuxuu xusuusinayaa walaalkiisii geeriyooday taakuladii uu ku qabi jiray iyo sidiisii oo kale inuu isagana ka filanayo haddana wuxuu dareensiinayaa dantiisu qaalin uun inay tahay aanay ahayn fardo iyo wax uu nin weyni u baryootamo nin weynina markaas buu ku beelbilicsanayaa gabadha iyo wiilasha labada ah ee ay haysato isaguna uu adeerka u yahay wuxuu ka digayaa haddii awrka la siin waayo gocasho aan harin inay wiilashaa ku reebi doonto weligoodna ay uurka ku hayn doonaan sida abtigood loo galay iyo maalin maalmaha ka mida sida reerkooda loogu hungaysiiyey meel kale wuxuu ugu ballan qaadayaa muraadkiisa hadduu helo weligiis iyo allihii inuu u dacayn doono gabadhuna ay u dhali doonto wiilal kale oo kuwii hore la mid ah kuwa oo aan dhalanba uu tixda ugu magac bixinayo wuxuu yidhi ogu dagaa reerkayagu araxda jiilaale waa nimanan oo mana ka tegin abadan xaawaade agtoodaan haraad ugu dhintay awr ha la isiiyo adduun badan nimaan uga bartay yaad ehel wadaagtaane adigaa ifkii kaga haray ee awr ha la isiiyo waxaa lagu adkaystaa sangiyo ubaxa laalayse afku midig hadduu igaga dhacay awr ha la isiiyo agoontii walaalkaa ka tegay ha uur ku taallayne abtigood la qadi waa xuntee awr ha la isiiyo inay inamo badan kuu dhashoo aadan iyo nuur leh ibraahim iyo ciiseoo kalead ka abdanaysaaye ifka intaan ku noolahay ducaan kula agjoogaaye ardaageedana lagu dhargiye awr ha la isiiyo abtirsiinaday waa ragguu ubaxu saaraaye adiguna irdaha sanatar iyo oodantaa tahay raggobaa adduunkala gurtee awr ha la isiiyo malahayga wuxuu ahaa gabayaaga keliya ee inta maanse ku baryootamay loogu dulqaatay welibana loogu garaabay
sababtuna sida ila tahay waa ninkii lagu bariyey sidii uu kaga jawaabay. wariyayaashu waxay noo soo tabiyeen gabadha ninkii qabay tixdaasi innaba inaanay dhaqaajin, awrkiina uu seedigii kaga xisay. waxaa hubaala haddii gabayaaga neefka lasoo siin lahaa inuu bulshada ku dhex ceeboobi lahaa, in la cambaarayn lahaa oo maansada baryootankaa uu yesid ku mudan lahaa. ha yeeshee wixii la odhan lahaaba waxaa loo wareejiyey ninkii uu sidaa u bariyey, ninkii walaashii qabay, nabcaadkii qaalinku la weynaaday, ninkii inta gabayga si walba loogu bariyey ku soo loodsani waayey. waxay sheekadan ku soo gebagabayn jireen gabayaagu markii uu noqday tixdiisina la maqlay in la xooleeyey oo reerkii uu ka dhashay ay awr iyo geelba inta u qaaraameen barqa ay xeryaha u buuxiyeen. maseegidiisii soo qadiyey ayay ku xumaynayeen. u male dhegaystayaal, barnaamijkeennii fanka iyo suugaantu maantana halkaa haynoo joogo. dhegaystayaal, taariikhda dhow ee soomaalida dadka la socdaa siday u warhayaan, sanadihii hore ee dagaalkii labaad ee dunidu intii uu socday giddii dhulka soomaalida ee geeska afrika waatuu u gacan galay ingiriiska marka laga reebo jabuuti oo horey loogu yaqiin xeebta soomaaliyeed ee faransiiska. 1941kii afrikada bari markii ciidamadii talyaaniga lagu jabiyey ayaa waxaa halkaa laga dhisay maamul ciidan oo loo bixiyey British Military Administration oo la macno ah maamul askareedkii ingiriiska, kaasoo soomaalidana la wada hoos keenay. wuxuu ahaa xilli ay dunidu wada arkaysay oo dagaalkii dowladaha Yurub ka dhex aloosnaa uu salfaday dadyow badan oo qorshihiisii hore iyo maamulkiisii dambaba aan lug iyo gacantoona ku lahayn. waxay ahaayeen dadyowgii la gumaysan jiray oo inta askar laga dhigay xisaab la'aan ugu hoobtay goobihii dagaalada ee Yurub ka sokow Afrika iyo Aasiya ka socday. iyadoo ay weli colaadii aloosan tahay ayaa waxaa baraarugay in badan oo ka tirsan ummadihii la haystay ee hurdada dheer ku jiray. hindiya ilaa Masar, galbeedka ilaa bariga Afrika, dadyowgii muddada dheer la gumaysanayay ayaa gilgishay. qareennadii gobonnimada iyo waxyaqaankii dunida saddexaad ayaa fariimaha isu diray. waxaa la isugu baaqay ummad waliba inay dow u leedahay cidda gumaysiga ku haysata inay ka xorowdo. soomaaliduna waxay ugu horraysay ummadihii uu dareenkaasi sida degdeg ah ugu dhex fiday ee haddana wax ku qabsaday. dareenkaas madax bannaani doonka ayaa horseeday bishii May 1943 13 dhalinyaro ah oo kala qoro iyo kala degaanba ahaa asii isku mabda ahaay inay tashi ku kulmaan abuuraana urur siyaasadeed casri ah dhulka soomaalida kii ugu horreeyey. waa ururkii markii dambe magaca SYL amaba leego taariikhda ku galay, mabaadi'da howlgalkiisana ay ugu waaweynaayeen xoraynta iyo midaynta soomaalida geeska Afrika ku kala fidsan iyo qorista af Soomaaliga. waxay ahayd mabaadi'dii ay ugu suura gashay inuu ku dhaato taageerada aan kala dhantaalayn ee dadweynaha muddo 20 sano ku dhow, taasoo ku timid waxbaridii siyaasadeed ee dadka taageera ay siin jireen iyo heshiisyadii walaaltooyo ee ay dhex dhigi jireen soomaalidii kolba ay dagaaladu ka dhex qarxi jireen. haddaba waxaan shaki ku jirin ururka sidaa la isaga daba shubay inuu lahaa xoogag la col ah. waa run, waxaana ugu daraa Talyaani oo markuu Ingiriisku koonfurta ka qabsaday dagaalkii hadduu dhammaaday u halganayay inuu ku soo noqdo siduu u gumaysan jirayna uu mar labaad u gumaysto. leegada iyo dadkii ay horkacaysay arrintaa gaashaanka ayay ku dhufteen, waxaana u silcay wadaniyiin door ahaa una saxriiray. dabayaaqadii 40-nadii qarnigii hore ayay ugu darayd markaasoo ay dhaceen goobihii waaweynaa ee dhagax tuur iyo hanoolaata la baxay, mar walbana xoogagii gobonnimo ujirirka ee ay leegadu hogaaminaysay cadaadiska lagama dayn ilaa 1960kii kolkii uu dalku xoroobay. haddaba isgadihii 1949kii iyo 1950kii ayaa waxaa dagaalamay dhowr qolo oo iniba ay isku tal sheeganaysay gobolka mudugna wada degisatay. goobo aad loogu leeday iyo colaado lagu kala irdhoobay ayaa geyigii nabad uga dhaaftay, waxaana ugu ba'nayd goobtii dibbiro taariikhda ku gashay. durbadiiba madaxda laantii uu xisbigu gaalkacyo ku lahaa ayaa arrintii isu taagtay, kuwaasoo dadaal dheeraada kadib ku guulaystay qolyihii diraday inay isugu keenaan geed ay ku wada hadlaan. waxaa xigay heshiis guud oo lagu nabday iyo colaadii tolalka kala dishay oo laga sokeeyoobay. waxay noqotay guul siyaasadeed oo xisbiga u soo hoyatay iyo isla markaa tallaabo ku reebtay Soomaali iyo shisheeyada wixii colka la ahaa. dadkuse kolba wacadkii la dhigtay kuma wada qanceen. waxaa jiray dhinacyadii la heshiisiiyey mid ahaan ka mid ahaa oo ka samrida adeero iyo walaalo dagaaladii dhacay lagaga diray. habeenkii dambe ayay dhalinyaro caraysan oo aardoonihii istaabatay oo oday iyo waxgarad kala toona iyaga oo aan la tasan
halabooqad oo gaalkacaya agteeda ah waxay ku gowraceen 2 nin oo u dhashay qoladii ay colaadu ka dhaxayn jirtay ha yeeshee daraatii ka horeysay ay madaxdii xisbigu wacadka u kala qaaday leegaduba ha ugu daraatay waxay ahayd dhacdo wixii sanaha jeclaa oo idili ay ka gurteen waxay ku soo beegantay xilli ay madaxdii xisbigu ku doodayeen gobonnimo buuxda inay Soomaalidu hesho waa xilligii halgamaagii weynaa Allah u naxariistay Cabdullaahi Ciise Maxamuud qaramada midoobay loo diray ee bulshada caalamka ay ka dhaadhicinayeen dad iyo dal madax banaani mudan inay yihiin isna maamuli karayaan dacwigaas waxa inay buriyaan ku howlanaa Talyaaniga iyo Soomaalida jaalka ahayd daliilna waxay ka dhigan jireen walaadihii toltolka ku saleysnaa ee kolba meel ka qarxi jiray sidaa darteed dhacdadaas oo kale leegada way u daray waxayse u roonayd mabaadi'dii ay hirgelinayeen kooxihii ka soo horjeeday si kastaba ha ahaatee 2 nin markii in la dilay la maqlay ayaa waxaa gebiyey maansayahan kooxdii ama kooxihii leegada ka dhanka ahaa ku jiray kaasoo malaha istusay dhacdadaasi inay magaca xisbiga aad u waxyeeleyn karayso isaguna inuu ku digtaa ay u bannaan tahay waxay ahayd madaxdii leegada tix uu dareen xumil ka galay burburka heshiiskaba iyada ayaa uga darayd maalintaas bay u yeedheen gabayaa mintiska xisbiga ka mid ahaa lana odhan jiray guune bootaan geedi yaryare waxaa la weydiistay inuu tiriyo gabaygaa ka dhan ah uuna ku muujinayo hoogga iyo ba'a dagaalada toltolka ummadda ugu sugan iyo guud ahaan dadaalka madax bannaanida loogu xusul duubayo sida ay u wiiqi karayaan habeen axadaad oo ka mid ah habeenadii ay leegadu dadweynaha taageersan waxbari jirtay una warrami jirtay ayaa naadigii xisbiga ee gaalkacyo wuxuu guuna bootaan ka mariyey gabaygii loogu bogayay halkuu dhagiisu ahaa saw lama ogaanin wuxuu yidhi aqligeeda Soomaalida ee dawaligeede iyadoo arkaysay dishaa aabbihii dhalay ee umaxaawa iyo aadan bay ku ismanaayeen goobtii jannada loo amray iyo ubaxa laacayay ikhtilaafka waatay dhigan odayadeen yidhi maantana amuur baa dhacdiga amara waaweyne nimanbaa ibliis duufsaday oo ooda loo rogeeyay idil iyo wataa la isku tabay idilkii daaroodee dabka ololi iyo qaacu waa aqaladoodii onkod iyo hillaacya waxaa aaran lala waayay abaartiya waxay noogu wacan oonka nagu raagay waxa ebar ka dhigay xoolihii ariga geeliiba waa uquubadan geysanay iyo arigii dhacay nin waliba u aar buu isyiday inaa adeerkaaye la ilow ilaah iyo wadkii uunka layn jiray kol haddaan armaatiga dhiciyo aala tuman weynay oon abad kufteen wada nahaan kala adkaan weynay Itaaliya inaan xoog la arag saw lama ogaanin abid caalinkood reerihii la ibtireynayo ilaahay wuxuu necab yahay ku isticmaalaane kol haddaan islaamka iyo kufriga kala aqoon weynay oo axadba axadkii uu rabay eegga kala gooyey aafaa samaawiga dhicisow lama ogaanin adduunyadu kobtii ay fadhiiday laga ogaado wicey iyo walaabaa ku haray oogadii mudugay aftintii lawaa iyo naqi unugu saaraaye iliisa iyo dooxada kolkii uudka laga laysto afka gowrale iyo ceelcad iyo kax iyo iidoole inaan qorana urur daaqahayn saw lama ogaanin afudhuublaynta iyo weerarkii ayadan lala joogay ilaalada iyo duulaamadii la ololeynayey aroorkii socdiyo dhaamankii layska agangooyey inaan aayatiin laga helayn saw lama ogaanin ardayada cidloodiya guryaha laga agoontoobay naagaha asaydu caddahay iyo dumarka ooyaaya ugeybkii la laayay iyo kuwii uurka laga dooxay nimankii ableeyada sitiyo eebada iyo seefta aakhiro inay tagahayaan saw lama ilaawin maantaan ilaanayna waa iidda gaalada ee nimanba ayaantii jibira eegta weligoodii ofdheere iyo tiib bay hayeen 10 aqooloodee wallaaha waxaa inagu dhacay awr ka dheelayinee aagaan ka soo kala go'dayna waynaga ilaahe alif iyo bar baa naga dhintay ee saw lama ogaanin waxba arartuyo ila durkina waxaan ku soo ooday abti iyo adeer iyo la noqoy ee helo waaweyne inamaha la kala guursadoo layskuna ahaaye idilkeedba Soomaali waa uliya diilkeedii aan lihiin hadduu alla yahay aayar kala jooga istantiibadan xirannay iyo dhaartina adkeeya haddaydnaan edab darrada iyo fidnada idinku daynaynin Cabdullaahi oo uuna jira yaan lagu abbaarin istiqlaalka noo soo baxayna dirigta iyo eersan arligaad ku dhalateen ayaan laydinku addoonsan dhegaystayaal gabaygii guuna boonsan